Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka Samakaab TV. Qodobada ku daawad doontaan waxaa kamid ah askar ka soo baxsatay Axmed Madoobe oo ka soo lugayay Kismaayo soo gaaray Muqdisho. Taliyaha xabsiga dhexe Muqdisho oo bukaan kala soo baxay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho iyo bukaankii oo geeriyooday. Weerarkadiisa ahaa oo maanta ka dhacay Balcad iyo ciidamo la sheegay in lagu dilay. iyo xildhibaano fara badan oo ka tirsan Jubbaland oo soo gaaray Muqdisho iyagoo dacwad ka Axmed Madoobe. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino. Taariikhdu waxay tahay 17 bisha December sanadka 2019. intaad maqashaan oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal. Askar ka soo baxsatay Axmed Madoobe oo soo lugayay Kismaayo ilaa Muqdisho. 11 askari oo horey uga tirsanaan jiray ciidanka daraawiishta Jubbaland ee Axmed Madoobe oo ka soo lugayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ciidankan oo markii hore ay tiradoodu gaaraysay 16 askari ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaal culus kula galay degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo qiyaastii 60 kiiloomitir u jirta magaalada Kismaayo. dagaalkaas waxaa looga dilay ku dhawaad 5 askari waxayna Al-Shabaab kala wareegeen gacan ku haynta magaalada Jamaame oo ay muddo joogeen. markii ay ku adkaatay inay sii joogaan Jamaame kuna laabo waayeen dhulka uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland ayay go'aansadeen askartan inay u soo lugeeyaan dhanka Muqdisho. Cabdirasaaq Cabdi Cumar oo ah sargaal ka hogaaminaya ciidankaas ayaa sheegay in muddo 7 ay ku qaadatay inay soo gaaraan caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyagoo dagaal culus kala soo kulmay Al-Shabaab. Cabdirasaaq waxa uu sheegay in socdaalkii ay uga soo baxeen degmada Jamaame ay ku soo gaareen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe oo kamid ah goobaha ay ugu awoodda badan yihiin Al-Shabaab, isagoo sheegay in ilaa 3 goobood oo ay sakawaad ku ururinayeen ay kula dagaalameen Al-Shabaab kuna laayeen. waxa uu sheegay in rafaad dheer kadib 11koodii oo wata hal askari oo dhaawac ah ay maalin ka hor soo gaareen magaalada Baraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed, halkaas oo ugu horeysay meel ay ka taliso dowladda Soomaaliya. sargaalkan ayaa sheegay in Baraawe ka soo raaceen doon taasoo keentay xeebta Jasiire ee magaalada Muqdisho, halkaas oo sida uu sheegay ay ka soo wadeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ay ka codsadeen inay ka hor yimaadaan. ugu dambeyntii sargaalkan u hadlay ciidankaas ayaa sheegay inaysan weli helin cid la hadashay, dadaal badanna ay geliyeen sidii ay ku heli lahaayeen taliyaha ciidanka xoogga dalka, balse weli aysan u suurtagelin. waxay madaxda ugu sarreysa dalka ka codsadeen inay u raadiyaan xuquuqdooda iyagoo sheegay inay wataan hubkoodii oo dhameystiran meeshii loo dirana ay ku howlgalayaan. taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage oo shalay hortagay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar uu soo hadal qaaday awoodda Al-Shabaab waxa uu sheegay inay jiraan 15 askari oo ka soo baxay Kismaayo kuwaas oo soo dhex maray Al-Shabaab lugna ku soo galay Muqdisho, taasoo sida uu sheegay muujinaysa itaaliyarida Al-Shabaab. sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in dhawaan isaga iyo ciidan oo hogaaminayo ay Muqdisho ka ambabaxeen lugna ay ku gaareen Buula Barde oo kamid ah degmooyinka ku yaal gobolka Hiiraan kana arrimiyo maamulka Hiirshabelle ay Shabaab muddooyinka sanada ay gudoomiyeen. markaana waxaan ku guda jirnaa Muqdisho. taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa bukaan kala soo baxay mid kamid ah isbitaalada Xamar. taliyaha xabsiga dhexe sareeya guuto Maxamed Sheekh Xirsiile ayaa lagu eedeeyay inuu mid kamid ah isbitaalada ku yaala caasimadda Soomaaliya kala soo baxay bukaan xabsiga dhexe ku xanuunsaday oo ay dhaqaatiirta xabsiga dhexe sheegeen inaanan waxba looga qaban karin isbitaalka ku yaala gudaha xabsiga. qoyska bukaankan ayaa sheegay in taliyaha xabsiga dhexe oo adeegsanaya awood ciidan uu xoog ku galay isbitaalka oo bukaanka jiifay, waxayna sheegeen inuu bukaanka ku qaatay mid kamid ah gawaarida gargaarka oo laga leeyahay xabsiga dhexe, isla markaasna ay ku buufsan tahay calaamadda ciidamada asluubta. bukaanka lagu magacaabi jiray Xasan Kurtun Calasow oo ku jiray xaalad halis ah isla markaasna kooma ku jiray ayay qoysku bukaanku sheegeen inuu taliyaha amray
in laga furo koomada isla markaasna dib lagu celiyo xabsiga dhexe. Qoyska bukaanka oo muuqaal ka duubay marka uu taliyaha falkan sameynayay ayaa muuqaalka ka dhex sheegay waqtigaas inuu taliyaha awood u sheeganayo isla markaasna uu isaga qaadi doono mas'uuliyadda bukaankan haddii uu dhinto. 24 saac kadib bukaanka ayaa ku dhex geeriyooday xabsiga dhexe Muqdisho, waxayna qoyska marxuum ku sheegeen inaanan la duugi doonin inta sharciga laga horkeenayo taliyihii sababtu u ahaa in isbitaalka laga soo saaro. Qoyska marxuumka ayaa dowladda ka codsaday in la soo qabto taliye Xirsiile isla markaasna laga qaado garaadaha u xiran lagana qaado magdhow marxuumka geeriyooday. Marxuumka geeriyooday ayaa ku xukunaa ilaa 8 sano, wuxuuna xabsiga ku jiray muddo 3 sano iyo bilooyin ah. Taliyaha xabsiga dhexe weli kama jawaabin eedeymaha loo jeediyay maantay. Markaana Kismaayo, madaxweyne Axmed Madoobe iyo wakiilka qaramada midoobe Soomaaliya ayaa ka wada hadlay khilaafkii ka dhashay doorashadii Jubbaland iyo higsiga 2020 oo wax yar inaga xigaan. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa gaaray magaalada Kismaayo, wuxuuna kulan xasaasi ah magaalada kula qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe. kulanku ahaa mid albaabada u xiran yahay ayaa waxa wararku ay sheegayaan in diiradda lagu saarayo xalinta khilaafka xooggan ee u dhexeeya dowladda iyo Jubbaland. ujeedka safarka James Swan ayaa sidii la iskugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac loona dhameyn lahaa khilaafkii ka dhashay doorashadii maamulkaasi Axmed Madoobe uu ka soo baxay dowladdan ee Kibiya diiday. beesha caalamka ayaa wada dadaal ay ku doonaysay in iskugu keento dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaan Jubbaland iyo dowladda federaalka oo la qorsheynayo in dhawaan wada hadallo rasmi ah u bilowdaan. ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay iyadoo inta badan la xiray ciidamada la soo dhoobay wadooyinka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. lama oga natiijada ka soo bixi doonta kulankan oo ku soo aaday iyadoo uu shalay madaxweynaha Jubbaland uu dib ugu laabtay gudaha magaaladaasi kadib markii uu ka soo laabtay safar qaatay toddobaadyo kaasoo uu ku joogay dalka Kenya. xildhibaano dacwo ka ah Axmed Madoobe ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho. xog ay heshay caasimadda Online oo warkan daabacday ayaa sheegay in xildhibaano ka tirsanaa baarlamaankii hore ee maamulka Jubbaland ay maalmihii la soo dhaafay soo gaareen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. xildhibaanadan oo tiradooda gaaraysa 40 mudane ayaa dacwo ka ah madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dowladda uu kala dhaxeeyo khilaaf. xubnahan ayaa ka cabanaya in madaxweyne Axmed Madoobe uusan muddo ku siman 35 bilood oo ah 3 sano aysan ka helin xuquuqdii ay ku lahaayeen maamulkiisa sida mushaaraadkoodii iyo xuquuqihii kale ee xildhibaanku lahaa. xildhibaanadaas ayaa shalay Muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah senatarada laga soo doortay deegaanada maamulka Jubbaland, kuwaas oo ay u gudbiyeen warqad ay uga dacwoonayaan Axmed Madoobe. qaar ka mid ah xildhibaanadaas ayaa caasimadda Online u sheegay in dacwadooda ay u gudbi doonaan cid kasta oo wax ka qaban karta sida xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. marka laga soo tago mushaar la'aanta ay ka tirsanayaan maamulka Axmed Madoobe, waxay sheegeen inay jiraan tacadiyo kale oo qayb ka ah dacwadooda, kuwaas oo ay ka tirsanayaan maamulkii ay ka tirsanaan jireen ee Axmed Madoobe. Axmed Madoobe iyo dowladda dhexe waxaa in muddo u dhaxeeyay khilaaf aad u culus. maalmihii u dambeeyay waxaa soo kordhayay mas'uuliyiintii ka tirsanaan jirtay maamulkii Jubbaland, balse hadda sheeganaya inay ka madax bannaan yihiin dowladdan ay ku biireen. markaana degmada Balcad, weerar kadis ah ayaa maanta ka dhacay Balcad iyo ciidamo la sheegay in lagu dilay weerarkaasi. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar khasaare geystay oo maanta ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. weerarka oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen bar kontarool oo ciidamada dowladdu ku leeyihiin halkaasi. sidoo kale wararka ayaa intaas ku daray in weerarka uu xigay dagaal toos ah oo dhex maray ciidamada militariga Soomaaliya iyo raggii weerarka soo qaaday. ugu yaraan waxaa la sheegay in ilaa 3 qof oo 2 ka mid ah ay askar ahaayeen ay ku dhinteen weerarka, halka qofka kale uu ahaa shacab sida ay noo xaqiijiyeen ila deegaanka ah. dhinaca kale Al-Shabaab ayaa ka hadashay weerarkaasi, waxaana ay sheegatay inay ku dishay ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, iyadoo intaas ku dartay inay ka soo furatay 2 qori iyo baskoolado sidii hadalka u dhigtay. weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhanka saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan dagaalkaasi iyo weerarka ka horeeyay intaba.
xaaladda ayaa haatan mid degan waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada dowladdu ay dhaqdhaqaaqyo culus ka bilaabeen duleedka degmada Balcad. Inta badan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro khasaare geystay ka fuliyay wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe maamulka Hirshabelle, iyadoona ku dishay mas'uuliyiin ka tirsanaa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle. daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen Samakaab TV. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan.